محمد محمود سري oo kamid ah ardayda bishan ka qalin jabinaysa kulliyadda ICT-ga ee Jaamacadda GOLIS waxa uu markii ugu horeysay dalka ku soo bandhigay barnaamijyo cusub oo ku shaqeynaya moobilada ama telefoonka gacanta kuwaasi oo kala ah kaydka buugaagta iyo barnaamij uu sameeyay Jaamacadda GOLIS haddaba xaflad ballaaran oo lagu daafurayay barnaamijkani uu maskaxmaalkani daada yari ku soo bandhigayay ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa ugu horeyna waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin maamulka iyo macallimiinta Jaamacadda GOLIS arday iyo marti sharaf kala duwan waxaana madasha hadallo kooban ka jeediyay Fuad Cabdirashiid oo kamid ah macallimiinta kulliyadda ICT-ga Cabdilaahi Abshir oo ah hormuudka kulliyadda ICT-ga iyo Nuuraddiin Ibraahin oo Cabdi xogayaha duulista iyo hawada ee xisbiga wadani iyo Cabdalle Sacad oo ah hormuudada Jaamacadda GOLIS macallin ahaan markii aan soo jeegareeyay dabcan aan eegay barnaamijkani waa barnaamij aad u qiimo badan waa barnaamij laga faa'iideysan karayo waa barnaamij functionality-giisa design-kiisa iyo shaqadu qabanaya intaba runtii aan aad iyo aad runtii uga helay weeyaan maxamed isagoo dhinac ka wada project-kii jaamacadda oo aan labadan u sameeyay mid nahayn ayuu haddana ku guuleystay inuu caawayna u qanciyo inuu soo tuso wax waddankeena dhif ku ah hadday jiraanna kuwa jira ee mobile applicationska waddanka lagu isticmaalay yihiin qaar dibadaha laga soo sameeyay oo sanacadoodu aanay waddanka la jaanqaadkiisa aad ugu habboonayn dadkeena markaad eegto waa dad hibo iyo fikir leh haddii laga faa'iideysana wax fara badan soo kordhin kara anigu markii ugu horeysaan arko application afka Soomaaliga ka turjumaya oo wax lagu qoro wuxuu ahaa kay ku urursan yihiin gabayadii hadraawi waxaan u maleeyaa dhamaanteen aad baynu u wada aragnay wax badan buu tarayo waxa laga maarmay in la qaato de buuggii weynaaya halkaraan ayaa moobilkaaga kugu jira aad wax ka baranaysaa aad wax kala soo baxaysaa waxaad u baahan tahay ka dheehan karaysaa GOLIS abka uu maxamed sameeyay annagu jaamacadahan sidiisaan ku qaadanayna waxaanu doonaynaa in uu ahaado ka hadda la diyaariyay ka ay GOLIS ku hawlgelayso maxamed si aan u dhiirigelino isaga inta kale ee joogta jaamacadda ee ku hadhayna aanu iyagana tusno halka uu naga taagan yahay qofka innovation ka sameeya sidaan u dhiirigelinayno oo idinku riixayno inaad idinna la timaadaan dadaallo kuwan oo kala waxaanu sidoo kale maxamed ugu ballan qaadaynaa in laga bilaabo maanta isaga iyo ogolaanshihiisa ku xidhantay aanu aqoonsanay inuu shaqaale ka mid ah Jaamacadda GOLIS noqdo ugu dambeynna waxaa madasha ka hadlay wiilkani muhindiska ee soo bandhigay barnaamijkani cusub dunidan maanta maalin walba isbedel baa ka dhacaya isbedel dhinaca tiknoolajiyadda ah mid ka mid ah tiknoolajiyadaha sanadahan dambe aadka u hirgalay saameynta weyn yeeshay isticmaalka tirada badan la yeeshay dunida caalamku si weyn u isticmaalaan waxa weeye waxa loo yaqaan mobile apps barnaamijyada ku shaqeeya moobiladu laba barnaamij baan halkan ku soo bandhigay caawa ka koowaad waa GOLIS University barnaamij u gaar ah GOLIS University waxaan halkan soo bandhigayaa barnaamij kale oo app oo la dhaho kaydka buugaagta hal barnaamij aad moobilkaaga ku soo dejisato waxa uu dhigan yahay maktabad dhan buu dhigan yahay barnaamijka kaydka buugaagta waxa ku jira tiro ku dhow 40 buug Ali Wacays Saab TV Hargeysa